بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد ومد المسلمين تعمل كستود جوجتان سلامة الإسلام كان يدكو سلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا ليال وما أنت وحن سميننا إن باستداس والنوع على يقانو هول ويت فإذا أنا لكوب كريم بيلاد ما شاء الله لقى مش كين كرادان سلادة كشيكة runtii aad iyo aad ayay dadka ugu wanaagsan tahay qofka doonaya inuu weyd luuso qofka doonaya inuu cayilka dhimo caruurta noqotay hilibka yeelatay oo iyagoo yaryar hilibka koray ama bukaan ama caafimaad qabaan cid walba waa loo karin karaa waa high in fiber waxay leedahay magnesium waxay leedahay selenium waxa la yiraahdo oo waxa thyroidka iyo qanjidhada u wanaagsan hormoneska thyroidka waxyaabaha wax ka taray ku jirta waxay leedahay macdanta loo yaqaan kobarka phosphorus-ka zinc-ka lagama sheekayn karo haddaad doonayso inaad weyd dhinto haddaad doonayso inaad caafimaad macaan leedahay intaba waad cunaysaa haddaad caafimaad qabtona waad cunaysaa marka waxaan jecelahay inaan had iyo jeer baastooyinka caaqibada leh karsano oo aan tani waa khudradii aan ugu sameynayay maraqa maasha allah mid baan isku dul taagi doonaa waan ka sheekayn doonaa insha allah wixii faa'iido inoogu jirto marka aan jarjarayo aan isla socono insha allah maasha allah chickenka waan yara faxfaxinayaa sugada lagu darayaa insha allah tani waa sweet potato qiimaheeda lama soo koobi karo aad iyo aad bay u wanaagsan tahay halka qofka marka aad waa inuu cuno qofka macaanka leh ka diabetiga ah ka pre-diabetiga ah ka weydka dhimaya intaba waa wuxuu wanaagsan galkan hadda ka dhilaynaa maasha allah haddaan isnaana ka sheekeeyo waxa ku jira kama sheekayn karno waxay ka kooban tahay wax la yiraahdo soluble iyo insoluble labadaba oo fermented gutiska caawiya colonka jirka ee caloosha iyo aad u caawiyaan oo waxyaabaha bakteeriyada wanaagsan dhaliyay ku jirta koow ka tahay vitamin A bay leedahay vitamin C bay leedahay waliba vitamin C ga 65% baa ku jira bahashan maasha allah lagama sheekayn karo wanaageeda magnesium bay leedahay oo iyadana conton maalintii intaad u baahnayd bahaafkeedii ah ayay leedahay marka vitamin B6 bay leedahay potassium bay leedahay copper bay leedahay wanaageeda lagama sheekayn karo qofka isdhuubaya ka pre-diabetic ah ka diabetic ah intaba u fiican tahay waayo gutiska iyo caloosha waxa u dawo ah iyo oo jirka oo dhan u dawo ah vitamino kalena way leedahay dad badan baa waxay soo weydiiyaan cayilka dadka ama wheelchairka ku jira ama aan iyagu isku filayn sida looga ilaaliyo runtii anigu dad maadaama aan dad ka gacanta ku soo hayn jiray oo aan cayilka ka ilaaliyay waa key of waxyaabahan kaga ilaaliyay waayo macaan bay u keenaysaa cuntadiina way jeclaysiinaysaa laakiin cunto badan ma siinaysid waa boorshka inta aad siiso laakiin wax macaan ku jiro qofku ku jeclaysto taad ugu daraysaa tani weydna ma kordhinayso oo weyd badan kuguma kordhinayso waana u fiican tahay caruurta marka taa loogu daro wax kasta maasha allah hadda basashaan jarjarayaa insha allah hadda basashii waan jarjaray maasha allah hadda waxaan dhilaynaa waxaan sameynaynaa kaaradkii waxa la yiraahdaa maqsin madow u xun xabad kaarada indhahaagu nuurkoodu waa kordhayaa vitamin A baa ka buuxa vitamin C waxaan lahayn kuma jiro maasha allah kana darkaysan waa aubergine wax nafaqo ama leeyahay jirkeena ma u leeyahay uu leeyahay wuxuu leeyahay vitamin B1 B6 potassium mineral copper iyo qaar kale oo badan marka hal ogaado isaga laftirkiisa dadkii qofka yare ama doonaya dadka weydka doonaya dadka inay luusaan dadka macaan kale aad buu ugu wanaagsan maasha allah kuwan waa pepperka waxaan ognahay vitamin A bay leeyihiin C bay leeyihiin vitamin C gaaga maalintii intaad u baahnayd daily waabad qabtaa baa laga helaa minerals fara badan bay leeyihiin maasha allah lama koobi karo nimcadooda aad baad u fiican yihiin weydlas qofka rabo waa iyagaaba iska raashin haddana haddaad keligood iska karsato raashin kaleba uma baahnay
caruurta iyo reerka maasha allah easy to cut siduu ku fiican yahay qurux jarjaraa kaloo inoo dhamaadan hadda waxaa inoo hadhay tamaandhadii inaan jarjaro maasha allah maasha allah halkan waxaan ku daray 2 malqacdood oo olive oil ah hadda waxaan ku darayaa onionka baastadii casayd biyaheedii baan karkaray baastadii casayd baan ku daray maasha allah inta caruurta yaryar tahay hal baro nafaqooyinka caynkan oo kala ah waxa weeyaan waana carbohydrate haddana sonkorta kor uma kicinaysa markiiba baastada casi sonkortay markiiba cirkaa geynaysaa laakiin tan 2 malqacdood 3 malqacdood dadka cunto maanta oo dhan calooshaada waqti dheer bay qaadanaysaa inay hagaajiso hadda waxaan ku daray taarikii maasha allah الدنيا هذه في العام وأي مقدام ما شاء الله حطيت لنا الزيتون والسويت بوتيتو ما شاء الله حطيت لنا معدني ونسكن من ولا كان يقوم دقيقة ما شاء الله ما شاء الله وأركيسان waxaan ku darayaa chickenkii waan yar kariyay chickenka because saliid looma baahna maadaama oo dadka cayilka dhimaya iyo dadka loogu talagalay overweight-ka ah dadka macaanka leh waxaas waa xawaashidii la isku wada geeyay nooca doontada ha ahaato ku dar intaasaan yar isku huurinaynaa iminka ma sha Allah qofkii doonaya tamaandho xabub ku darsadaa kii aan doonayn kuma darsado ودبولنا هذا كانوا ناقصين هذا ما شاء الله ما شاء الله مرقة سواب بسلاضي وحبوا مدلنا كم سرا كتر قتشير كتر ما شاء الله تمام الذي وحول بوينو سودي خاصة دين وينو كرسنتي خاصة دي هول من بريد كايدوات ما شاء الله وابسلاتي واسدا هذا وأرن كالكن وكبلاب مياه intee lagu qofka binaadmiga u baahan yahay inuu cuno imkaanigu ka labadii baan ku soo qaaday wad arkaysaan in yar baan dheeraad ah intaas qofku u baahan yahay qofku rabo inuu ka sii yareystana saas uu ka sii yareynay malqacad buu ka sii qaadaya intaas kugu filan khudradda bad ku dul ridanaysaa chicken hilib wixii aad samaysatay kale hadana chicken ku sameyn maanta maraqayna ku sameynay chickenka sirtu waa dhadhanka وانا قانا hablayga inta fiican inay joogan sidaan u sameeyay ka fiican laakiin portion ka la isku haysta hadaan ilmihii bukay ama qofkii wheelchair-ka ku jiray ama aan intaas oo dhan oo fiber ah ama carbohydrate siiyo imika anigu qof xanuunsanaya inta waan ka qaadi lahaa inta yare kalluun ku siinaya inta kalena khudrad baan uga dhigaya sirtu waa dhan qaadii waan way dhan tahay nin walba u geey kasta iyada ka macaan kasta iyada ka fiican meeshaad gashaba waxa kaaga soo baxaya waa khudrad xabad bal waxa ku soo raacaysa baastada cas oo waxana oo nafaqo ku jirto ma sha Allah ilaa noo calaf halkan uu arinku ka bilaabmaya haddaad blade-ka mugi of baastadan cas si kasta caafimaad u tahay cunto ogow calooshaada dib bay ku tahay iyo kolankaaga iyo dheefshiidkaaga laakiin haddaad malqaacad ka cunto wax kasta malqaacad balaga khudradana ka buuxsato khudradaasi waana feeling calooshu way ku buuxinaysaa gaajo ma dareemaysid sonkortaadana ma kicinayso weight-kana way kaa dhimaysaa alxamdulillah miyaanay shukr rabbil caalamiin ahayn sidaa hablaha kale inay iga sii samayn fiican yihiin baan jecelahay sidaa laakiin ha raacaan dariiqadu waa yarayso khudradana ku badso haddaanad khudrad haysan ku darso beans khudradaha kale ku darso ma sha Allah digirtaba ku darso waxa kale ku darayso haddaanad khudrad haysan wabillahi tawfiiq salaamu calaykum programka waxa loo sameeyay dadka iska dhimaya cayilka iyo dadka caruurta overweight-ka haya iyo dadka overweight-ka intaba waa caawinaya ma sha Allah